وأقليو إلى إسلاني وأقليو إلى إسلاني وقاذا دكسيدا وقاذا ولا ليال وقاذا دكسيدا وقاذا ولا ليال kulanti wacan wanaagsan muddada soo socota waxaan ku qeexi doonaa videogan ama bacjaladan faa'iidooyinka ay leedahay waxbarashada gaarka ah ee afka qalaad loo yaqaan special education waa waxbarashada la siiyo ardayda ka haysta dhibaatadu ama wax ku baran kari waaya kalaaska ee la socon kari waaya taa macnaheedu ma aha inay ardayda kale ka liitaan sida arki doontaan oo halkan ay martiin ugu yihiin isla markaana ay noo sharxi doonaan khubaro aqoon u leh barnaamijkan waxbarashada gaarka ah ayaa waxaa ka mid ah dad psychologist oo iyagu maskaxda bini'aadanka ama cilmi nafsiga darsay waxaa ka mid ah khubaro macallimiin oo iyagu aqoon u leh muddo aad u badan ku soo dhex jiray barnaamijkan gaarka ah ee ardayda loogu talagalay waxaa kaloo iyaguna jooga oo jira oo halkan nala jooga iyaguna dad loogu talagalay caruurta hadalkooda uu ka soo bixi waayo amaba yaraanta markay yar yihiin hore afka u baran waaya amaba hadalka u hadli waaya dad ku takhasusay oo loo yaqaano speech therapist afka qalaad amaba baridda afka ama dadka doonaya ilmaha inay wax baraan waxaa kaloo isaguna halkan nagala qayb gali doona waalid iyagu dhibaato ka haysato isla markaasna la tusayo qaabka loo sameeyo waxbarashada gaarka ah waalidkaas isaguna su'aalo ka jawaabi doona isla markaasna la tusi doono bal habka la raaco ama processkaasi sida uu yahay sidoo kale waxaa iyaguna nagala qayb galaya barnaamijkeenan macallimiin Soomaaliyeed oo iyagu had iyo jeer u dhaxeeya iskuulada iyo waalidka iyaga oo dhaqankii aanu meesha ka maqnayn haddaba intaynan u gudagelin habka qaabka waxbarashada gaarka ah iyo sida loo sameeyo waa maxay waxbarashada gaarka ah waddanka Mareykanka aynu joogno waxaa dhigaya sharci gooniya oo lagu ilaaliyo nidaamka waxbarashada si xuquuqda ilmaha ee uu wax ku baranayo loo ilaaliyo isla markaasna loo helo dugsiyada loo yaqaan public schoolska ama iskuulo madax bannaan oo si gooniya ay ardaydu wax ugu bartaan qaabka waxbarashada ama habka waxbarashada ee gaarka ah ee afka qalaad loo yaqaan special education ayaa ah mid loo baahan yahay in ardayda ka liidata meelaha qaarkood kor loogu soo qaado taa macnaheedu ma aha inuu ilmuhu qabo wax xanuun ama wax cudur ah inagoo si qoto dheer leh u gudageli doona barnaamijkeenan aynu ugu talagalnay waxbarashada gaarka ah ee aanu jecelnahay waalidku inay ku tababartaan ama ay arkaan sida loo maro habka ama processku wuxuu yahay ayaa had jeer waxaa jira su'aalo aad u fara badan oo ay qabaan oo ay macallimiinta weydiiyaan Many parents are concerned that their child will be pulled out of the classroom and be alone all day. Ardadiisi miyuu wax la baran hayaa mise kaligiis baa galaas gaar la siin hayaayo galaaskaas asaga iyo macallinku kaliya wax loogu barahayaayo ardada kuma dhex jirahay. Your child would be in the special education classroom with 2 or 3 other children. Ilmahaaga waxbarashada gaarka la barayaa waxa la geynayaa kalaas gooniya oo 2-3 4 caruur oo kale oo la mid ah isaga loo geynayo si uu helo wax loo yaqaan attention ama one on one si gooni ah ilmihi wax loo baro. Okay, I can do it. Marka aan anigu maqlay psychology cunuga horta ma dhakhtar buu u baahan yahay oo dhakhtar baa la geynayaa oo isbitaal baa la geynayaa halka baa lagu soo baarayaa taa inaan ogaado waa anu baahanahay sida waalidku walacsan yihiin marka la yiraahdo psychologist macnaheedu ma aha in ilmuhu maskaxda wax uga dhiman yihiin oo meel la geynayo hase yeeshee waa in la qiimeeyo awoodiisa oo faham halka ay gaarsiisan tahay waxaa jira marka dhakhaatiirta loo yaqaan cilmi nafsiga ama psychologist ama psychiatrist iyo ku soo takhasusay habka ay maskaxda u shaqeyso qofka markaasi psychologist-ka isagu soo bartay cilmi nafsigu waxa uu aqoon u leeyahay inuu imtixaan gaar ah ilmaha ka qaado si uu arko heerka ilmaha fahamkiisa uu gaarsiisan yahay sidoo u fikiri karayo iyo waliba sidoo u jawaabayo ama jawaabta ugu soo celinayo waxyaabaha markaasi laga rabo ee heerka ardayda la midka ah ay sameynayaan iyadoo loo qiimeynayo ama loo barbar dhigayo dadka la da'da ah ee la midka ah. Many of our parents say, "My child speaks like an American. Why can't he read or write?"
wiilkaygu luqadda dadka wadanka u dhashay sideeda uu hadlaa si fiican buu luqadda u yaqaanaa waxa laga doonayaa weli ma aanan garan homeworkiisu ka shaqayninba de luqadda hadduu yaqaano baahida kale ood raadinaysaan ma aanan garan ayadana in la ii fahamsiiyaan jecelaha. And that's a good question. There are students who can learn English very quickly and speak very well. in ardayda afka luqadaha ku hadasha aan ingiriisiga ahayn in la kala saaro afkii inuu yahay dhibaatada haysata ilmaha iyo in dhibaatada ilmaha haysata ay tahay waxbarasho kale. waa halka ay school psychologists-ku ay markaasi ayagu soo galayso si ay u samayso qiimeyn ama imtixaan aan hadal ahayn. imtixaankaasi oo ah tusaya ilmaha wax fahamkiisa iyo waliba halka uu gaarsiisan yahay. waxaan ahay wadiga dugsiyada waxaan ahay wanada macalinka. habka waxbarashada gaarka ah loo qiimeeyo ee loo ogaado ilmahaasi inuu u baahan yahay in kale ayaa waxay ku tilmaamaan khubaradaasi 3 qaybood. The first step in the process is when the classroom teacher submits a referral. waa qaybta koowaad ee marka hore waa inuu macalinku soo diro ilmaha oo wax loo yaqaano referral ama macalinka kalaaska u dhigaya uu isagu soo diro oo ardayga u soo diro koox gaar ah oo loogu talagalay. waa midda labaad waa inay kooxdaasi isu timaado kooxdaasi loo yaqaano family support team ama kooxda qiimeynta iyo taakulaynta familiga ama qoyska. kooxdaasi markaasi waxay sameeyeen wax loo yaqaano qiimeyn oo waxay sameeyeen qiimeyntaasi marka la sameeyo kadib ayaa waxaa lagu soo gunaanadaa kolba wixii markaasi ay ogaadaan taasi oo loo yaqaano in la sameeyo plan ama qorshe loo dejiyo oo ilmaha wax lagu baro si uu ilmaha kale ula qabsado. aan ku horeynay haddii macalinku aaminsan yahay amaba dareemo in ardaygiisa dhib meelaha qaarkood ka haysato waxay qoraysaa amaba ay macallimadaasi qeexaysaa waxay aragto waxa markaa iska arkaya oo arrintan ka wada hadlaya koox gaar ah ama kooxdaasi aan hore u soo sheegnay ee loo yaqaano taageerida qoyska. waalidku wuxuu markaa codsan karaa kulan gaar ah inuu kooxdaasi la yeesho. kulanka ugu horeeya ee macalinku wuxuu sharxayaa sida ilmuhu u dhigto ama dabeecadaha uu iskuulka la joogo. Malayun, maybe you could tell us how Abdul is doing at home and if he's doing his homework or if he's feeling frustrated about school. Abdul marka runtii waa ka in waxbarashadiisu xoogaa gaabis tahay oo ilmaha kale uu waxaan ahay wadiga dugsiyada waxaan ahay wanada macalinka. waagii baryaba ubax laga waraabsho waagii baryaba ubax laga waraabsho waxaan ku warwareegaya soo bandhigaya macalinku qaar ka mid ah ilmuhu wuxuu qoray ama hawshu qabtay iyadoo oo markaasi laga hadli karo wixii markaasi walaac ah oo dibadda la soo dhigayo. waalidku wuxuu fursad u helayaa inuu ka hadlo wixii uu ilmaha ku fiican yahay iyo wixii ku adag amaba uu ku liito. waxaa markaan dhammaan jaanis loo wada helayaa iyadoo la isku dhan yahay in la isdhaafsado wixii arrin ah ee meesha ka jira. tusaale ahaan siduu ilmuhu u sameeyo shaqada guriga loogu diro amaba layliga amaba homeworka sida loo yaqaano iyo waliba adeegyada guriga marka ay reerku adeegsanayaan ee ay wax u diranayaan. markaan waxaan ku weydiinaynaa su'aalo ku saabsan sida uu guriga u dhaqdo marka maalan su-aasha u horeysa waxa weeye haddii aad u sheegtid inaad tiraahdid waxaa samaysaa maalan koobka qaad dhaqo shaah ku shubo markaas waxaa la fadhiisataa miisadaas oo kaleeto ma intaas oo aad shee u sheegtay isagu sida u sameynaya isku xijinaya ma samayn karaa mise ma samayn karo? anigu waxaan isaga haystaa maskaxiyan waa samayn karaa laakiin marar badan baan waxaan ku arkaa inay ciyaaru dhaafsiinaysaba uu attentionkii koobkan dhaqo xagga dhig ka soo qaad gee uu kaga fududahay inuu ama ciyaaro ama maaragtay meel kale u jeedo. tani waxay kooxdan amaba tiimkan ka caawinaysaa bal inay ka diyaariyaan sidii ay arrintan qorshe u samayn lahaayeen
waxaa laga yaabaaba inay sameeyaan waxa loo yaqaano strategic amaba qaab waxbarid oo ka duwan ta classroomka. waxaa laga yaabaa inay sameeyaan test amaba ay ogolaadaan in la sameeyo qiimeyn dheeraad ah in lagu sameeyo ilmaha haddii markaasi waalidka uu kula heshiiyo. taasi oo markaasi gudbinaysa amaba inoo gudbinaysa qaybta labaad oo ah waxa loo yaqaano evaluationka amaba qiimeynta. waxaa jira haddaba dhowr nooc oo waxbarasho oo qiimeyn oo lagu sameeyo ilmaha. macalinka markaasi special education teacherka loo yaqaano ama macalinka waxbarashada gaarka ah waxa uu ilmaha siinayaa amaba uu u qiimeynayaa sida uu wax u akhriyo, siduu wax u qoro, sida spellinka amaba higaada iyo mathka iyo xisaabta siduu u qoro. ardayda iyagu markaasi ingiriisigu uu ku adag yahay waxa uu markaasi u joogaya oo isagu diyaar u ah qof tarjumaan ah oo loo tarjumayo waxay meeshaasi ay ka hayaan. waxa isaguna imanaya markaasi oo ilmaha eegaya iskuulka psychologistkiisa amaba cilmi nafsiga ku takhasusay. wuxuu la kulmaya marka ilmaha si gaar ah iyo u arkaya waxa loo yaqaano one on one. wuxuu cabiraya markaasi ilmaha sida awoodiisa fikir ay tahay iyo siduu wax u fahmayo iyo waliba sida wax u xasuusan karo. imtixaankan markaasi psychologistka ama testkani maaha mid isagu u baahan hadal. inta badan waxa lagu qiimeeyaa waxyaabo gacanta laga qabto iyo waxyaabo basala, waxyaabo ilmuhu isgelgelinayo ama qalab uu ilmuhu isku xirxirayo si loo fahmo inuu garanayo ama raaci karo qaabka maskaxeed ee loo baahan yahay waxbarashadu u baahan tahay. ardayda qaarkood ayaa haddaba waxa soo gelaya oo u imanaya waxa loo yaqaano speech clinician amaba speech therapist afka qalaad loo yaqaano oo ah dadka ilmaha hadalkooda amaba ilmaha hadalku ku adag yahay amaba higaadu ku adag tahay qiimeeya amaba la shaqeeya. waxaa laga yaabaa markaasi inay gabadhaasi amaba ninkaasi aqoonta u leh dhinaca speechka amaba hadalku uu ilmaha imtixaan ka qaado, imtixaankaasi oo ah mid hadala. haddii ilmuhu markaasi uu ku adag yahay afka ingiriisigu waxaa markaa la barayaa oo markaasi imanaya qof tarjumaana oo tusaya amaba u tarjumaya su-aalaha la weydiinaya waxa ay yihiin. marka waxa kaloo iyaguna meesha ku jira qiimeynta way sameynayo macalinka waxbarashada gaarka ahi iskuulka psychologistkiisa ama cilmi nafsigiisa. waxaa la mid ah in mar hore ardayga lagu booqanayo kalaaska oo la eegayo siduu wax u qabanayo, habku wax u baranayo iyo waliba instructionska la siiyo amaba waxyaabaha macalinku u dirayo siduu u fahmayo. dhowristaasi ilmaha la eegayo waxyaabahu sameeyo interviewgaasi ama su-aalahaasi la weydiinayo marka la dhammeeyo waxa markaasi ay diyaariyaan report amaba qorshe weyn, warbixin ku saabsan wixii ay soo arkeen. marka waxa kulma tiimkii amaba kooxdii markaasi mar labaad si ay u eegaan waxyaabaha wararka ama macluumaadka ay soo aruuriyeen. waxa markaasi ay go-aan ka gaaraan oo ay eegaan in ilmuhu u baahan yahay in waxbarasho gaar ah loo diro iyo in kale. To qualify for a specific learning disability, a child needs to show difficulties in 3 areas. One is severe underachievement. This is when the child is significant. haddaba siday noo sharxayso special education teacher ama macalinka waxbarashada gaarka ah khibradna oo ah muddo in badan ku soo dhex jirtay ayaa waxay sheegaysaa in ilmuhu oo ay ka mid tahay waxyaabahaasi waxbarashada ka haysta dhibaatada loo qaybiyo 3 qaybood. waa qaybta koobaad waxa la yiraahdaa special learning disability ama ilmaha disable ku ah learningka ama waxbarashada. haddaba qaybtan ayaa ah ilmaha inuu yahay mid caadi ah ama maskaxdiisu ay tahay mid la mid ah ardayda kale ama normal ay tahay, hase yeeshee uu ka hooseeyo oo aanu gaarsiisnayn dhinaca waxbarasho ardayda la midka ah. taasi oo ah mid laga filayay mar haddii uu la maskax yahay ardayda la midka ah. waxa laga yaabaa in ardaydaasi haddaba ka hooseysa hase yeeshee maskaxdooda ama fahamkooda uu fiican yahay ay dhibaatadu tahay inuu ku wanaagsan yahay inuu wax ku barto maqal. waxa laga yaabaa inuunu aqoonin amaba aanu ku fiicnayn wax akhriska.
laakiinse uu maqli karo wixii dhegaha looga sheego. waxaa laga yaabaa ardaydaasi inay ku liidato waxa loo yaqaano memory problems amaba ay ka haysato dhinaca xusuustu inay dhibaato ka haysato. qaybta labaad ee iyaduna waxbarashada gaarka ah soo gelaysa ayaa waxay tahay ardayda loo yaqaano students with developmental cognitive delay. waa ardayda iyagu markaasi afka Soomaaliga haddii aynu ku macnayno noqon kara in ay ka yara hooseeyaan oo aanay gaarsiisnayn maskaxdoodu heerka ardayda kale ee kalaaska ay la midka yihiin. waa ardayda ay isku da'da yihiin ee kalaaska la dhigata. waxay ardaydaas had iyo jeer u baahan tahay practice badan oo ay gacanta ka qabato amaba loogu celceliyo ama waxa loo yaqaan repetition and practice, iyadoo inta badan dhowr jeer loogu soo celceliyo wixii si uu ilmahaas u barto. waxaa kaloo iyaduna jirta qaybta saddexaad oo noqonaysa students with an emotional behavior disorder, waxa afka qalaad loo yaqaano. waa ardayda iyagu dabeecadooda iyo dhaqankooda iyo caadifadooduba ay yihiin mid ay dhibaato ka haysato. ardaydan oo ah iyagu arday aan isxukumi karin isla markaasna aan ka qayb qaadan karin classroomka waxyaabaha ka socda, iyagoo aan deganayn amaba aan deganaansho muujin karin. ardayda qaarkood ayaa waxa ay ku tilmaamaan inay haddaba u baahan yihiin in ay dhibaato ka haysato amaba ay ka faa'iidaysan karaan speechka wax laga hadalka iyo language serviceska amaba afkii luqadii inay dhib ku tahay. waxaa taa keeni karta in aan ilmuhu markii uu hadalka baranayay ee uu soo korayay inuu hadalku ku adkaa. waxaa ka mid ah haddii ilmuhu uu afkiisii aanu ahayn afka ingiriisigu aanu ahayn afkiisii koobaad, waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka qabsato waxbarashada. hase yeeshee marka imtixaan laga qaado ee wax la baro ee ay u timaado macallimiintu, waxaa laga yaabaa in la soo gaarsiiyo heerkii hore mid ka wanaagsan. haddaba haddii laguu sheego in ilmahaagu qaybahan mid ka mida uu ku dhacayo amaba uu buuxiyo shuruudaha aynu soo sheegnay, isla markaasna adigu waalid ahaan aad ogolaatay oo aad u ogolaatay iskuulka inuu macalinka gaarka ahi ilmahaaga wax baro, waxa markaasi uu waalidku awood u siinayaa macalinku inuu one on one ilmihii si foolka fool ah ula shaqeeyo oo uu u sameeyo waxa loo yaqaano individual education plan amaba qorshe waxbarasho oo ilmaha u gaara, isla markaasna isagu ku kooban si uu wax u barto. inta iskuulka waxbarashadu ay socoto amaba iskuul yarka dhexdiisa, waxa waalidka markaasi lagu casumayaa markastaba inuu yimaado oo uu la eego amaba la socdo kolba wixii horumar ah ee ilmihiisu sameeyo. waxaa loo dejinayaa qorshe gool uu gaari karo, hadaf uu ilmuhu tiigsan karo oo loogu talagalay isla markaasna loo malaynayo inuu wax ku baran karo. waxaa markaasi aad la kulmaysaa macalinka haddii aad tahay waalidka macallimiinta iyagu u qaabilsan waxbarashada gaarka si aad hadafkaasi ula diyaariso oo aad eegto ilmahaaga waxa uu baran karo, isla markaasna aad tallaabo ula socoto marka uu guriga yimaado. ardayga markaasi isaga lagu qiimeeyo inuu u baahan yahay waxbarashada gaarka ama special education programka, waxa uu macalinka la kulmayaa macalinka waxbarashada gaarka ah ee isagu si gaara ugu takhasusay arrimahaasi maalin kastaba muddo. macalinkan oo isagu xirfad u leh arrimahan waxa uu ilmaha u diyaarinayaa qorshaha muhiimka ah ee maalin walba kalaaskiisa si uu la saan qaado, isla markaasna ugu soo celiyo meesha dhibaatadu ka haysato. haddaba waxaa mar walba lama ilaawaan ah oo aynu soo barannay ama mar walbaba loo sheegaa inay waalidku leeyihiin awoodda ilmaha lagaga qaybgeli karo barnaamijka waxbarashada ee gaarka ah oo special education programska waxaa loo yaqaano. haddii markaasi waalidku aanu ogolaanin oo aanu u saxin iskuulka in ay iyagu imtixaan ka qaadaan isla markaasna ay geliyaan ilmaha barnaamijkaasi waxbarashada ee gaarka ah, ma noqonayso, ma suurtagelaysa. ogsoonow waalidka ayaa iyagu iska leh saxeexa loo baahan yahay amaba ogolaanshaha ilmaha lagu geen karo barnaamijka waxbarashada ee gaarka ah. waad mahadsantihiin guddigiinan maaragtaye aad iyo aad sida sharafta leh wixii iga dhaadhiciyey. markii ugu horreysay horta aan maqlay
cunugaaga wuxuu u baahan yahay special education waxay iila muuqatay waxaan aad uga fakiray oo aad aan uga murugooday anigoo u arkahayay in cunugaygu ka gaabis yahay maskaxda ilmaha kale oo heerkii la rabay uusan joogin marka anigu special education waxaan u haystay cunuga la siiyaa inay tahay kan dhagoolaha aan kan amase kan maskaxdiisu ay dhiman tahay si gaar ah oo wax loo baro in la siiyo laakiin muddo badan markii aad wax iga dhaadhiciseen ina tusteen qaabka loo darsahayo mushkiladda haysata cunugayga uu waxbarashadiisa uga hooseeyo ardada asaagiisa marka aad iga dhaadhiciseen iyo qaabka aad u raadinayseen inaad qiimeyntii iyo sidii waxbarashadiisa loo heli karo in la baaro sida uu wax u xasuusanayo sida uu maaragtay macalinka ula qabsanayo sida uu maaragtay problemkiisa iyo dhibka haysto asaga u xalliyahayo in la baarahayo iyo heerka uu taagan yahay waxbarashadiisu meesha ay maanta joogto midaas waxay ahayd mid qancisay markii aan kaloo arkayna oon arkay macalimadii la yiri school psychology ayadana waxaan u haystay in psychology markaan maqlo in maskaxdaas wax maaragtay caafimaad u baahan balse waxaan ogaaday inay tahay cunuga wax la tusahayo oo lagu ogaanayo qaabka fikirkiisa maskaxdiisu ay wax ku meelaynayso sida marka waxyaalo la isku xirxirahayo la dhisahayo qaabka uu dhisahayo waxyaalaha samee la yiraahdo qaabka uu sameeynayo iyo waqtiga uu siinahayo iyo sida uu dadaalahayo iyo timeka maaragtay ay ku haboon inuu ku sameeyay sidii qaab xisaabeed ha ahaato qaab maaragtay ha ahaato garasho qaab ha ahaato xasuusin inuu xasuustiisu fiican tahay waxyaalahaas oo dhan markii aan arkay ama aan la socday qaabkii wiilkayga wax loogu raadinayay in kor loo soo qaado oo waxyaalaha badan oo wada farax galiyay haddana aad iyo aad baan idinkugu mahadinayaa sida aad maaragtay wanaagsan aad cunugayga maaragtay si gaar ah ugu barteen marna uu ardadiisa ula baranayo marna si gaar ah loo siinayo waan ku aqaanay cunugayga inuu luqadda ku fiican yahay balse qoraalka iyo maaragtay akhrinta inuu ku liito waan arkahayay hadda mararka qaarkood waxaa laga yaabaa farsamada gacanta oo kale hooverkii naga jaba asagaa noo suubiya wix allaale wixii kale oo gacan laga qabanayo guriga ninka ugu horeeya weeye laakiin akhris iyo homework ka shaqee iyo muxuu ahayd wax qor iyo marka la yiraahdo waxaan ka dareemahay caajis iyo dhib inay ku tahay taa xal u raadinteedii oo aad maaragtay isku taxallujiseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin anigana waan ku faraxsanahay marka yaan loo qaadan waxbarashada gaarka cunugaaga u baahan yahay hadii la yiraahdo cunugu inuu noqday cun maskaxdiisa wuxuu dhimantahay disable dadka kan waxay u yaqaanaan wixii laga rabay oo dhan qofku haduusan keenin inuu u baahan yahay in la taageero oo kor loo soo qaado sababtoo wixii laga rabay baad ka gaabisay waxbarashadii heerka taagneed baa ka gaabisay marka disable waxay u yaqaanaan qof kasta oo u baahan taageero marka taas waxaan u arkayaa inay waalidiintu si gaar ah u fiiriyaan aniguna waan dareemay waanan arkay cunugaygii waxbarashadiisii inay aad iyo aad u soo kacday waxaan ahay wadiga dugsiyada waxaan ahay wanada macalinka waagii baryaba